بسم الله الرحمن الرحيم مقاعيقو يحيى إسماعيل يحيى نديره عيارتي هورو دقمد إبراهيم كودبورا halkan shir jarayd baan maanta ku qabanna anagoo dhalinyarta degmada Ibraahim Koodbuur gaar ahaan xaafadda Xaraawr iyo xaafadda Sheedaha waa mid koowaad waxaanu ka hadlaynaa waraaqada horta shalay soo baxdo ka waramasa degmada Ibraahim Koodbuur ciyaartooyda loo qaadanayo iyo maamulkeeda waraaqada horta shalay soo baxday totally waan diidanahay haddaan dhalinyarta xagan taaganahay ta koowaad waxaan la hadlaynaa gudoomiyaha degmada Ibraahim Koodbuur ninka la yiraahdo Subeer degmada uu ku cusub yahay haddana go'aan degdeg uu ka qaatay حلنا قدومي أرن لو دنيا هاي أيها لو بهاي دقمدي لو ما دماء مكرق جونيا تن أرن كوتا أرن كيجا هاسوق إن دليل تلقى الحدية لو بهاي قدومي أنت أصلا كتجيه على لأنك على سعيد مرورتا سبورتس كسومال لامبونك كوفديا قارهان حافظ هذا على سعيد مرو arrinkan dib uga noqo hadii kale oo lagu jawaabayay miidiyaana jawaab lagu soo marinayaa ka sheerkaagii baad coach uga dhigtay degmada Ibraahim Koodbuur arrinkaana looma baahnade xaloob waxa jooga coachkii FA-gana final tagay league bidana dhibic laga qaaday waxa jooga ragii rabadaantii hore koob ka qaaday oo degmada Ibraahim Koodbuur kula degan marka waxa loo baahan yahay mar walba wax la soo xuleena arrinkeeda hoos loo eego tagale gudida ninka waxaan ka hadlayaa guji leeyahay guji waa heer gobolde imkana heer degmo la taagay marka guji waxaan leenahay dhalinyarta aynu siina chance adude goboladii baa too ninka bariga dhaweed koob goboladana murjic soo xuleeyay baa tahay degmadiina waan ku soo noqonnaa cidna ka yeelmayso aqliga salmigana dadka ma siinay guji hor taagnaado jiilka soo kacayo jiil walba waxleena chance nasi anaka joogna sports waxaanu ka garanaa taka tanaasub aan leena gudoomiyaha lagu magacaabay waxaan markaa baaq dheer u direeyaa maanta cid wala arrinka waraaqada shalay ka dambeysay waa in dib uga noqdaan waliba ninka Siciid Miro la yiraahdo ninka Siciid Miro xaafad gooni horta imka maamulo oo dhurqaanta la yiraahdo coachkuna waa qaadiro saan hore u sheegay waa ka sheerka True Cable marka waxaan leena Siciid Miro da True Cable ku eekow deegaanka sportska dhax ka noqon degmadu way balaaranto tala qaran la isku yimaado hadii noqon weedaana ku mudaharaad silmiyana sameeyna gudoomiyana waan hortagnaa insha Allah beritoole mudaharaad baan baaqana hadii kala degmada la isku soo noqonaya aniguna waxaan ay gudoomiye u sharaxan degmada aniga magacaygu yahay Abdiraxmaan Maxamed markana magaca Cabdisaad ahna ciyaartooy kamid ah ciyaartooyda degmada aan ku baday magaca gacanta ku hayn laakiin waxa aan maanta ka hadlaynaa arrimadkan shalay toole soo baxay oo waxaan anaga naxuseynin waxaan codsi dheer u direynaa gudoomiyaha degmada Ibraahim Koodbuur gudoomiye ku-xigeenka cid kasta oo ay khusayso arrinta shalay toole soo baxday anagu raali kama nihiin waa sheeko dhinac ka raran degmada Ibraahim Koodbuur aniga shalay toole soo baxay waraaqaha soo baxay kama mideysna waxaan leenahay waxaanu ka cabanaynaa inamada shalay toole la magacaabay gudoomiyaha degmada loo hortagay waraaqda saxeexay anagana ma matalaan waxa weeyaan walaal waxa qurux badan arrinka xaafadu de laba xaafadood ma jigjiga yar iyo ruqaanta ma aha degmada Ibraahim Koodbuur way ka ballaaran tahay degmada dib ha loogu soo noqdo dhalinyarada xaafadu way badan tahay de waxaan la ciyaarayaana waa kubadana micnaheedu waynu garanaynaa waa isdhexgal bulsho iyo isku soo dhaweyn tayina sheekadii dhinac ka raranto maanta media laga hadlo waxa ka qurux badnaan lahayd in anagana loola yimaado cidii xaafadda joogtay mas'uuliyiinta wax laga weydiiyo oo la yiraahdo yaa ciyaari karaya yaa maamuli karaya yaa jooga in hoos loo soo daadajiyo sheekadani anagu waxaan u aragnaa sheekada gaari ay wataan annaga tii horena cidina gigmi jirin maadaama aan xaafadda Sheedaha tan imikana waa sheekada imika guurtay ee xaga shaqeeyay guurtay oo nurqaanta magaca way Siciid Miro waxaan leenahay walaal horena inuu isku garanaynaa imikana waan isgaranaynaa dad kala qarsoon ma nihiin xaafad baynu ku wada noolahay degmadu waa degmadeeni waxaan leenahay walaal dad dib ugu soo noqo oo xaafadii dib u eeg oo degmadii balaari oo ciyaartooy iyo maamul iyo nidaam iyo cid walba oo xaafadii cid ka soo xuli karaysa way joogtahay in dib loo soo noqdaan doonayna gudoomiyaha degmada gudoomiyaha waxaan leenahay waraaqada shalay tooladan hoos dhigay waraaqad saxiixeeda ee loo dhameystirnaa aba raali laga wada yahay may ahayn waxa ay sheeko dhinac ka raran oo cid gaar ay wadatay waxaan ka cabanaynaa cidaas shalay toole wadatay hawshaas inaanay anaga nabadgelin waxaananu leenahay arrinka dib ha loogu noqdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Su'aal Maxamed Muuse oo ku magac dheer Su'aal Dhago oo ciyaartooyda hore xaafadda
iyagoon cuslaan haddana kubaddaayada mustaqbal madow buu galay horena ugu jiray imikana uu ku jiraa sidaa la sheegay gudoomiyuhu uu ku cusub yahay degmada waa bahal la siyaasadeeyo jeebka sare lagala soo baxay ma loo dhiibay bahal aan lagala tashan sidaa uu Yaxye Dheere sheegay heer gobol haddii heer degmo maamulaan baash waa falxumo wadamada jaarkeena wada aragteen dadkii shalay heer degmo ciyaaray maalinta dambe ma ciyaaraan ba ciyaartooy ma cala toobara ma cala gudoomiye lama ba ciyaaraba adeertay si ka daaya Saciid Miro adeer baash halaaqday haday falxumaato yaan isla falxumaan jigjigeer iyo dhurqaanta ha dhaafto baashu shacabka ha gaadho xiraaro soo gaadho sheedaha ha gaadho jigjigeer oo badda cas ha gaadho oo gantaalaha ha gaadho baash hala balaad ya haday 10 sano soo socday saddexdan in maamulay 10 sano soo socdana maamulaan dhalinyartan maxaa loo dambeeyaa maxaa loo qabanaya soo waxaad garateen ma anagii baa kubadii iska deynay oo mustaqbalkayga madoomadow galay shalay intii degmada hadaa maanta lagu soo celiyo wax ciyaartooy cusub lama hayo iyo halkan baaqaa dheereen hawada ku soo marna gudoomiye ka fiirsan ku leenahay in lagu noqdo sheekadan Allahumma salli ala Muhammad waxa inay ciyaartooydii fur badnaay xaafada maanta hore qofniga ugu jirin koobka hore degmooyinka midmid baan kaga jirtay ciyaartooy aad u fiican baan haynaa jeel cusub oo soo kacay aan haynaa xaqan ka soo hadlayna degmada Ibraahim Koodbur waaxdeedii marka maxaa xala sidan simaaha adeer sinaha loo dhaam baashiya la siyaasadeen sportska dalalka jaarkana kaga dayana nin qurun haduu meesha iska wato oo yar falxumo heer degmo heer gobol heersi wax walba isagii baa qaatay insha Allah waxaan rajeynaa kubad fiican baan rajeynaa anay saaw yahay sheegay waa gudoomiye u sharaxan yahay anagu gudoomiye ku xigeen baan u sharaxanay haduu ilaahay qoro soo waxa gartay maaha baash dib loogu celiyo anoo magacaygu yahay Marwaan Maxamed Cabdi kuna magac dheer Marwaan Jeeri oo ciyaartooy kamid ah Ibraahim Koodbur gaar ahaan xaafada Ganad waxaan u baahanay in dibna loo eego oo nagala jeesto ma baanin gubadaayadii haddii gacan qabasho noqon weydo sidii raga naga waaweyn ayuu mustaqbalka ay madow geliya marka waxaan doonayaa in gacan qabto oo mar kasta hoos nala soo eego ma aha in la jeesto gubadii waji laga dhigo oo xaafadan Ganadna ciyaartooy laga dhex qaadan waayo dibna loo eegi waayo gubadiina loo qaybiyo degmada Ibraahim qaybiso xaafadaha kale waxaan u baahanaa mar kasta in gacan qabto